جمعة وناكسن معلم وناكسن مال والبعض جوكتان ساحبة دي فيسبوك ما أنت ورباني ده هي ور جمعة وناكسن معلم وناكسن عبدير عثمان ساعب وان قاضي حالة صافر كنا ما أنت وحوا حال كذا والله سعتها وهالها كسر جمني إلهي أمتاسه حكا القاضي سود واد صاحبي سود واد ورباني ده هي ما أنت وباشو ويسوف شلوها باشو وحواي باشو بناك إسكنت بناك أن لما أنت ما كنت جمعة وناكسن أنت بدأت أرمو حصاب بحي أن آت لوغ الشقي أو رنهانتي آت حساسو هاي لكن dadku aysan badan ogeyn arintaas oo ku saabsan sidii maamulkii dhibka badan laga maray Hirshabbelle kow xilka qaadistii Cabdikariin Guuleed madaxweynaha galmudug labo iyo sababtii ay hadda loogu socday in xilka loo qaado Cali Cabdullaahi Cusable madaxweynaha Hirshabbelle aku horeeyo waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa god sireed ha qodin haddii aad qoodin ha dheeraynin ku dhici doontida lama ogeyn sida la socotaan isku darkii labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dib aad u badan laga maray ilaa ugu dambeyntii bulshada reer Hiiraan sidii u badan yihiin ayagoo raali ka la dhisay maamulkii la dhisay Cali Cabdullaahi Cusablena looga dhigay madaxweyne ayadoo la yiri madaxweynaha kaliya waxa ku tartami karo beesha xawaalle oo qabiiladii kala dhamaay habargadir abgaal baadacadde gaal jecel jareer cid kale soo sharaxi mayso la yiri oo sidaas oo Cali Cabdullaahi Cusable ku soo baxay maxaa ka dambeeyay sababtaas sida la socotaan wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda hore Cabdiraxmaan Odawaay madaxweyne Xaashiq Maxamuud qaybihi kala duwanaa ee dawladda imaamyadii iyo dhaqanka odayaasha mudulood waxay geed dheeri geed gaaman u fuuleen in ugaas xasan ugaas khaliif shirka la keeno hal ujeedaa jirta marka hal ujeedo ayaa jirtay oo ahayd in xawaalle oo si isku sharaxin haddii oo isku sharaxana laga hor istaago la yiraahdo xil kala haysaan gudoomiyaha baarlamaanka oo goodaxa uu rabay inuu isku sharaxo taas idoo lagu duulayo ayaa Cali Cabdullaahi Cusable madaxweyne laga dhigay Cabdullaahi goodax barre markii uu is sharaxay waxa la yiri saama qaybsiga qaybtiina waa ka haystaan madaxweynaha tiin madaxweyne ayaa tiin la yiri oo Hirshabbelle madaxweyne ka tiin sidaas darteed saama qaybsiga waa haystaan gudoomiyaha baarlamaanka kuma darsan kartaan ninkii raba inuu madaxweyne isku sharaxo ay soo sharaxo nasiibkiisu qaadaya ayadoo loogaayay in xawaalle madaxweynaha ku soo baxeen sababo badan oo jira oo dhaqaalaha ugu badnaaday awgeed saddex nin oo xawaalle ay soo sharaxday ayageena meesha musuqmaasuqi iyo lacagihii la isku xidhay wixii markii la arkay gadaal uga degeen qodobkaas waxa ka dambeeyay qodobkaas oo isla meel dhigay labada beelood ee kala hay madaxweynaha iyo wasiirkii arrimaha gudaha
wayna ku guuleysteen oo hamigii gudoomiyaha baarlamaanka godax waa laga reebay oo waa kay ku-xigeenka labaad u tartamay qodobkaas guushaas way gaareen markii musharaxiintii ay isku soo dhawaadeen oo la arkay qayb habar gadir kamid oo la socoto farmaajo iyo qolooyinka xasan ka soo jeeday waa la fikiro waxa la yiri war haddii abgaal oo dhaafo madaxweynuhu si aan aniguna ra'iisul wasaaraha wax uga helno waa inaan iska casilnaa madaxweynaha galmudug iyo haddaan iska casilna madaxweyne kale la qaadanaahe baarlamaanku xilka inuu ka qaadaan wanaagsan oo inta doorasho socoto madaxweynuhu qaylo yiri xilka lagama qaadin baarlamaanku ku doodo waa laga qaaday arrintiina waa lagu guuleystay oo waatii madaxweynihii galmudug xilka laga qaaday labada beelood shalay beesha u heshiiyey waxa ku jira damac labadaba damaca ku jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ah mid wax u anqalaa ma leh ayagoo dhinac laakiin inay qolo ka reebaan ay heshiis ku ahaayeen okay galmudug waa kiis laga qaaday xilka doorashadii 9 nin oo abgaal ah hal nin oo ujeejeen iyo 4 mashruuc habar gadira 14 mashruuc oo hiraab ah ayaa kursiga madaxweynaha u soo gududay oo la siiyay warqadii oo musharaxnimada soona buuxiyay kiiski maxaa la isheeg shuruudihii laga rabay madaxweynaha soo buuxiyay war ma maqal ma jira horta maqal ma jira maqal ma jira okay waa maasantiin waxaa la yidhi baadida nin baa kula daday naalla kaa badane oo aanan doonayn inaad heshaa daayin ibadkeeda halkaas markay maraysa marka lagu guuleysay madaxweynihii galmudug waadkii xilka laga qaaday labada beelood ee heshiisa ku ahay in beeshaan laga reebo hardanka siyaasadeed mid walba mid kale wax uma ongolayn mid walba mid kale wax uma ongolayn doorashadii waa tii la isku yimid xaashiq maxamuud waa loo midoobay qolo farmaajo hoos u la heshiiso iyo qolo farmaajo fiilaaka la heshiiso ayaa la noqday dowladdii waa tii dhacday farmaajo soo baxay farmaajo soo baxay qolba si hoos u la heshiiso waa soo baxay farmaajo wuxuu sameeyay marka asigoo labada ciidood eedooda ka cararayo waayo labada ciidood ballama ula galay labada ciidoodba ballama ula galay oo sheekh shariifna waa la ballayay axmed fiqina waa la ballayay rag kale oo cod haasto fiicnaan oo cusubla iyo kamid ahayna waa la ballayay markuu xilka ku guuleyso soo baxay intana kursigii labaad inay abgaal helaan rabaan habargidina ay helaan rabaan farmaajo wuu fikiray wuxuu ku fikiray war eedna ha ka gelin habargadir abgaalna eed ha ka gelin ilaa waa la sogyo in ayaga leeshiisa waa la ogyahay ka dhex bixi kursiga ra'iisul wasaaraha ka dhex bixi sidaa la socoteen ninka loogu hadalhaynta badnaay oo in laga dhigay ra'iisul wasaare rabo wuxuu ahay wasiirka hore waxbarashada xukuumaddii farmaajo ee tayo cabdinuur sheekh maxamed oo maraykanka isla degan yihiin PhD holder ragoo aad u kalsoonaya ka mid ah soomaalidana si fiican u gadbi lahay labadii qole
shalay ku heshiiyey hirdanka laga reebo nimanka la yiraahdo Hirshabbelle madaxweyne ka tihiin ayaa u soo fadhiistoo leeyahay nimankan waxay haastaan Hirshabbelle macquulna ma ahan in ayagoo Hirshabbelle madaxweyne haastaan loogu daro ra'iisul wasaaraha hadal garhay noqotay markii baawar sheerika waddanka loo fiiriyo farmaajo go'aan cadow qaata markaas oo ah war haddii habar gidir aad shalay ballan la gashay abgaalna aad la gashay labadooduna jagada u kala go'ayn qoladii kaloo aad rabtay inay siisana sharcigu ku celiyo la yidhi meeshaana madaxweyne ka yiinooye hadal gara tahay qabiilka kale waxa la sii karayaa waa murusade nimankii murusada ahayoo niman iska daacadahoo dadka ugu dhib yaroo waxba dhibaata dad dhibinaan ra'iisul wasaare meel cilaa ka helay waan ugu hambaliyaynayaa waayo hadiisaa waxaad walaalkaa la jeceshahay waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow ayagoo dagaal u gelin oona qabiil isku nicin oo dad walaal isku nicin oonan mataqaanaa dhaqaale uga bixin daacadnimadooday meel bannaan oo ka heleen daacadnimadooda ayay ka bannaan uga heleen waan ugu hambaliyaynayaa runtii shaladii horaan hambaliyey wax wanaagsan ayaan u rajaynayaa qodobna waa kaas ah qodobka marka ugu xiisaha badan oo awalna ka bilaabatay haddeerna ku soo aroori rabto ayaan idiin sheegayaa marka qodobkaasi wuxuu yahay cali cabdullaahi cusbale waa madaxweynaha Hirshabbelle dastuurka wuxuu siinayaa inuu soo magacaabo golaha wasiirada baarlamaanka Hirshabbelle laba wax mid xaq u leeyahay inuu asixiyo wasiirada iyo inuu diido markii wasiirada la hor keeno wiiligeed iyo allaheed xaggee lagu arkay golo wasiiro aan la keenin baarlamaanka rag mooshin ka keenaya madaxweynihii intee lagu arkay sharcigaas wuxuu ka shaqeeyaa wasiirada haddaad diidantii baarlamaanku diidan yahay waaba laydin keenaha ku suga kursigiina ku suga waa lala kala ordayaa looma dhamma lama yeelin lama tashan golaha wasiirada taladooda madaxweynaha iskale asaa magacaabayo xildhibaanka ta loo yeeran lahaa niyo ninkay wasiir ka dhigayo ahaa sharcigaas wuxuu ku yaalaa waa hawl laga soo shaqeeyay hadda waxaa loo tafaxiidanaya marka oo loo socdaa maadaama abgaal la waayey madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii habar gidirin ay waasay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii ay waasay waxaa loo socdaa in Hirshabbelle xawaallo laga qaado xawaalana in Hirshabbelle laga qaadaa loo socdaa waayo bishimanidii la dhigay waa lagu soo fashilmay mursada daacada ra'iisul wasaare helay xawaalana shalo madaxweyne helay labadii beelood oo la rabay in wax la helaanayo waxaase labadii kale wax isla rabtay maanta waxba ma haystaan waxba ma haystaan haatan iyo tala marka Hirshabbelle boqolkiiba 95 reer Hiiraan ma taageersana oo waa Soomaalida dhan oo wada ogtahay halkaas markay taagan tahay madaxweynena mooshin laga wado ujeedka ka dambeeyo ee ugu weyn ee mooshinka laga wadaa maahan wasiirada waa in cali cabdullaahi cusbale meesha laga qaadaa cali cabdullaahi cusbale iyo nimankii shalay la socday jowhar joogay markii ugaasku balweyne joogay ugaaska dhabar jabiyey hal qodobaa saaka u bannaan inay waxay shalay yiraahdeen waa soo qaadnay ku fara adeegaan inay ku fara adeegaan ayagaa laga rabaa inay intaan xilka laga qaadin
oo mataqaanaa xilka laga casilino in intiisa casilaan dadkooda dhinac ka soo raacaan na ayagaa laga rabaa oo dowladda cusub lala jaan qaado oo haddii dowlad cusub banaadir iyo Hirshabbelle dhex isku darayso isku darto hadday banaadir Hirshabbelle dhex Hiiraan ku soo darayso isku soo darto awood qaybsigii shalay lagu heshiiyey oo ahay inaan halkaan loo tartamin cid kale xawaalaha in isu tartamin inuu halkiisa ahaado abgaalno caasimadda hasto haddii maanta la isku dayo marka in heshiiskii shalay lagu heshiiyey laga baxo ayadoo good badan oo siyaasadda shalay inta la qoday lagu soo fashilma haddii halka la isu yimaadahay wixii laga helo yaan waxbana halka siinin hana laga waanto baan leenahay waan ognahay waan la soconnaa from beginner to end ayaan la soconnaa ha laga waantoobo nimanka xildhibaanada xawaalaha ololeynayo oo u ololeynayo baarlamaanka Hirshabbelle in Cali Cabdullah Cusub xilka laga qaadano message-kaygaan dhageysta war arka war waxaan idin sheegay maalinka Cali Cabdullah Cusub la qaatay la doortay ku dhaqma haddii aad diidaan adinka yeelkiin warsan jimcan wanaagsan